gabar Soomaaliyeed mar dambe oo garooba ma dhihi doonto garooba ninka ku guursanaa waa dhihi kartaa hadda kadib gabara ay bafaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Cano wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo walaalkan aadan karaama halka aad naga daawanaysaan oo bartan YouTube ku leeyahay aadan karaama. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aadan soo booqato fadlan subscribe nagu sharaf isla markaana riix kambalka casi ay ku soo garaad markaasi muuqaalada xiisaha leh ee aan halkan idinku soo gudbino. Sidoo kale soo raac baraha kale ee bulshada sida Facebook iyo TikTok oo iyagana ay ku qoran yihiin aadan karaama. intaas haddii aan kaga soo gudbo daawadayaal maanta maxaan idiin hayaa muuqaalka aad hore kusoo aragteen oo gabadha Soomaaliyeed. run ahaantii ummadda Soomaaliyeed waa mid dhinac walba u jabtay dhinac kasta, hadday noqoto dhinaca caafimaadka, hadday noqoto dhinaca siyaasadda, hadday noqoto dhinac kasta, adigu dhinac kasta marka loo eego, laakiin maanta waa tii ugu darnayd. hore waxaa u jirtay maxaan kuu sheegayay in gabdhaha Soomaaliyeed iyo sidoo kale wiilasha Soomaaliyeed la yiraahdo maxaan kuu sheegay waa laydin qurxinayaa, ilkaha laydin xirayaa, maxaan kuu sheegay dibnaha laydin durayaa, dibna qurux badan baa laydin yeelayaa, faruuryo waaweyn oo qurux badan oo maxaan kuu sheegay markaasi soo jiidasho leh. isla markaana waxaas yaa samaynaya dad ganacsata ah, ma aha waxay ku leeyihiin maxaan kuu sheegay dhakhaatiir iyo dad waxaan takhasus u leh oo lasoo hubiyey oo lasoo faafreebay oo macnaha aan saamayn lahayn dhinaca caafimaadka. sidoo kale waxaa soo baxay 150 kiniin daawo kan keer oo la leeyahay waa odayaasha xagga sariirta. iyagana waa wax ganacsata Soomaaliyeed ee keentay dalka. maanta haddaba waa tii ugu darnayd. 10 soo dhal soo sinayso qudbasira 7 sannadood lagugu soo qabo waxaa rabti soo fal farta doonta soo qor. hadda kadib haddii aad guursato ninka ku guursado waxaad ku dhahaysaa bikra ayaan ahay weligeed lama arag oo sidee. gabadhan Soomaaliyeed baa waxay tidhi waxaas xalkoodaan helay faarna layguma soo qaban karo. bal aan dhegeysana marka hore. wax far ahna layguma qaban karo oo faar ah. haddaad doonaysid gabarey oo garoob aad tahay ilaa 10 cunug soo dhal 10 cunug dukaanka igu imaanay waxaan ku siinayaa alaab bikra ka dhigaysa. run ahaantii waa wax lala yaabo waxa ay ku hadlaysaa gabadha Soomaaliyeed ma aha wax macquula waana qof ganacsato iyada waa maalinteedii, laakiin maxaan kuu sheegay ummadda Soomaaliyeed ma ka qanay waxba iskama hubiyaan. waxaa la odhanayaa lacagtaadii baa lacag lagu dul saaray halkan u galo shab waa isku shubayaan. maxaan kuu sheegay waxay u cayin sariirta shab waa la isku shubayaa. waxaan iyo waxaan maxaan kuu sheegay wajiga ay qurxinayaan weeye hiblaya samaysay shab waa la isku shubayaa. hadda toddobaadkan waxaa baraha bulshada haystay gabadhii caanka ahayd ee Mrs Wall oo damacday maxaan kuu sheegay inay bishmaha durato oo si ay bishmaha waaweyn u yeelato. dabadeedna xaalad xun ayay ku sugan tahay oo sida hadda lasoo sheegayo oo labadii dibnihii oo dhanba dee waa baaba oo muuqaalkan hadda idin muuqda waa iyadii. marka maxaan kuu sheegay sidaas oo kale wiil Soomaaliyeed isaguna yidhi bishmahan duranaya ma aqaan wax ku kalifay isagana muuqaalkiisu waa kan. marka ummadda Soomaaliyeed waa mid dhinac walba u jabtay. dadka ganacsatada ah ee Soomaaliyeedna run ahaantii waxaa la dhihi karaa waa kuwa ka ganacsanaya guud ahaanba xubnaha jirka bini'aadanka ah, sababtoo ay tahay shirkad caalamiya loo tegayaa ama meelahaas caalamiyana dhihina dee meelahaas ah. kadibna waxaa la dhahayaa maxaan kuu sheegayay waxaas baan u baahnay noo soo saar waa la soo saarayaa. ummadda Soomaaliyeed baa kadibna lagu tijaabinayaa ummadda Soomaaliyeed baa lagu tijaabinayaa. kadibna maxaan kuu sheegayay la odhanayaa sidii magaranaysaa ay ama neef xoola ah ama dee xooluhu qiime bay leeyihiin war adigu waxda iska gaaladu ay xayawaan ay wax ku tijaabinayso kale camal bal inay shaqaynayaan in kale. waa suuqa wax lagu tijaabiyo sunta waddankeena lagu soo shubaa. hadeerna daawooyinka iyo wax kasta oo qof bini'aadan lagu tijaabinayo halkan lagu soo tijaabiyaa. run ahaantii wax aad iyo aad looga naxo. toddobaadkii dhow sidoo kale waxaa baraha bulshada haystay hooyo Soomaaliyeed oo u doodi jirtay xuquuqul insaanka magaalada Muqdisho oo iyadoo uur loo foolanaysa ayaa waxaa la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho la yiraahdo Yardimeeli. kadibna hooyadii xubno muhiim ah lagala baxay. yaa kala baxay nin iyo naag cadaana oo ajnabi ah, ma hubayna cadaan yihiin laakiin kulli waa ajnabi uma aysan dhalin dalkeena. ma jirta dowlad wax ka qabanaysa. xildhibaan Jeeso ayaa afka furto yidhi Yardimeeli qof kasta oo taga waxbaa lagu soo yeelaa waa meel markaas lagaga ganacsado xubnaha jirka bini'aadanka. ma arag xataa cid tidhi waa ka daba tagnay iyo waa soo hubinay iyo
maxaan kuu sheegayay arrinta waxbaa ka jiray waxba kama jiraan toonna ciidamada dee danba kama lahaba maxaan kuu sheegayay dadkaas waxaa laga yaabaa ruqsad bay haystaan dalka kaga shaqaystaan lama eegayo shahaadooyinkooda meeshay ka yimaadeen waxay yihiin dantay u socdaan cid ma fiirinayso kaliya xoogaa yar sandareerada laga qaadanayaa ruqsad baa la siinayaa la shaqaystaa la leeyahay ummadda soomaalida dhinac walba u jabtay run ahaantii ilaahay baa u maqan bal gabadhan waxay ku leedahay maxaan kuu sheegayay wax kasta markii laga soo tegey xubintii taranka ee dumarka ayay usoo dhigteen oo ay leedahay maxaan kuu sheegayay sida aad ku dhalatay lagugu soo celinaya dee kolay qofkii caqliga leh wuu iska garanayaa kii aan caqli lahayna dee looba sheegi maayo ma fahanteen laakiin muuqaalkan wacyigelin ha u noqdo bulshada soomaaliyeed sii faafiya islamarkaana gaarsiiya asxaabta kale run ahaantoona wax aad iyo aad loola yaabo oo dee magaranaysaayay anigu waaba u qaadan waayaba in bulshada soomaaliyeed wax walba la iskaga tijaabiyo wax walba aaway dowladdii aaway hay-adihii ku xil saarnaa wasaaradihii ku shaqada lahaa aaway war cuntadii iyo raashinka waddanka soo gelaya tayadiisa lama fiirinayo daawooyinka waddanka soo gelaya tayadooda lama fiirinayo ganacsatadu waxay qaabkay dalka wax uga gadayso waxay wax ku soo iibsatay iyo waxa lagu cashuuray iyo waxay dadka wax kaga sii iibinayso cid og ma laha lacagta qalaadee waddanka lagu kala sarrifanayo ganacsataa go-aanka gaadha maha wax dowladda shaqo ku leedahay waxaa laga yaabaa ganacsato inay soo daabacato lacagaha waddanka wax cid wax ka qabanayso ma laha dowladnimo mana sheegaynaa amniga wax laga qabanaya amnigiina maxaa laga qabtay wakaas wax laga qabtay male marka ummadda soomaaliyeed oo dhinac walba u jabtay ilaahay baa u maqan run ahaantii maxaan kuu sheegay laakiin waxaan kula talinayaa ganacsatada soomaaliyeed ee ka ganacsata jidhka bini'aadanka soomaaliyey aan iska ilaalinno aan u dhug yeelanno aynu iska jirno dadkan waa dad budhcada doonaya in ay jidhkaaga iyo xubnahaaga macnaha ka ganacsadaan waxba yaana warkeedinku daalinin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waa walaalkiina aadan karaama tan iyo muuqaal kan lamida intaanu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu